السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowo janaalkeena haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saartid maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc aad u muhiim ah badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed aysan ku baraarugsaneyn waxaa jiro yani dad leh xirfado kala duwan haddii aan leh graphic design digital marketing social media marketing web development wax walbay ahaato xirfadaada sidee ugu faa'iidaysan kartaa oo aad yani adduunka ugu iibin kartaa maanta waxaan rabaa inaan ku baro waxa la dhahaayo Fiverr ama Upwork waa yani marketplace ama suuq yani ay isugu yimaadaan dadka xirfadaha leh iyo maxaa la dhahaa dadka u baahan in project ama hawl loo qabto marka waxaa tegi doonaa maanta Upwork Fiverr waxaa ku tusi doonaa real life sida oo project loogu raadiyo sida project origin profile-kaaga sida loo hormariyo oo loo dhiso marka waxaa bedeli doonaa shaashadda let's go marka number one waxaan rabaa inaad aadno oo u baahan tahay inaad tagtid fiverr.com waxaa la dhahaa fiverr.com haddii oo aad tahay qof cusub oo account aan ku lahayn waxaa u baahan tahay inaad account ku samaystid waxaa kaloo jiro Upwork marka labadan waa kuwa ugu caansan kuwo kaloo badanna way jiraan waxaa ka mid ah 99 guru haddii aadan account ku lahayn waxaa u baahan tahay inaad sign up gareysid oo halkaas sign in aad ku dhufatid haddii laakiin account aad ku leedahay waxaa dhehaysaa maya haddii aad account ku leedahay sign in aad dhehaysaa haddaadan account ku lahayn waxaa dhehaysaa join now oo ah yani hab aad isaga diiwaan gelin kartid oo aad yani xogtaada iyo aad ku buuxin kartid laakiin waxyaaba muhiim ah jiro oo kale number one horta account-kayga aan furo xagga ka arkaynaa account-kayga waxaa waaye gmail waxaa dhahaa aniga sign up with google accounts waxaa dooraa marka account-kan ay ku qoran tahay Arif Info waa account-ka yani aan u isticmaalo Fiverr-ka marka halkaan aan guda galaynaa oo waxaan arki doonaa account-keeni wuxuu dhisan yahay profile-kii waxyaabihii dhan waa dhisay okay halkaas aad ujeedid waa dashboard-keygii account-kan waxaan rabaa inaan u isticmaalo mid cusub oo beginner ah weli hadda active order ma haysti wax order ah ama ma haysto sidoo kale yani account wax project weli ma haayo marka account-kaaga markaa rabtid inaad ogaatid xogtiisa waxaad tagi kartaa halkaan ay ku qoran tahay profile markaa dhahdid waxyaabaha pointska muhiimka ah qofka oo u baahan yahay si yani u samaysatid yani Fiverr account waxaa u baahan tahay inaad dhigtid waxa la dhahayo gig anaga active gig ah malihin marka waxaa leeyahay draft oo giggeena waa draft marka tusaale gig waxaa la dhahaa waxa aad qaban kartid skillka aad leedahay marka skillkaaga waxaa lagaa rabaa qaabka inaad u kala samaystid tusaale basic oo SEO qofka waxyaabaha uu sameynaya waxaa kamid ah of page strategy backlink analysis one forum engagement iyo competitor backlink analysis waxyaabahan waa qofka yani shaqada basic ah marka uu qabanayo $10 camal uu qabanaa shaqo kale waxaa jirto standard ah oo $15 camal ama $20 ku qabanaysid mar walbo waxay ku xiran tahay experience-gaaga account-kaaga markuu cusub yahay oo beginner aad tahay lacag badan aa saare laakiin marka muddo ku guda jirtid oo experience badan ayay lacag baa la kordhiyaa kan waxaa u qabanaysaa of page strategy backlink two forum engagement sidoo kale competitor yani backlink analysis waxaa kaloo jira mid premium oo $5 ah asna waxaa qabanaysaa intaan iyo waxyaabo kale oo ka duwan marka giggan hadda aad ujeedid yani ma ahin mid oo published ah waxaan rabaa inaan idinku tuso sida loo publish gareeyo account-ka marka aad dhisaysid waxyaabaha muhiimka aad samaynayso waxaa kamid ah overview-gaaga sidoo kale pricing-kii description-kii requirements-kii gallery-gii waxyaabaha dhan almost hadda aniga waa sameeyey saa ujeedid industry-ga iyo waxyaabaha aan rabo inaan ka shaqeeyo waa kuwaana tagiskaygan qofka haddii waxyaabahan tusaale haddii uu dhaho aan furno browser cusub oo incognito ah tusaale haddii aan dhahno new incognito oo aan dhahno Fiverr qofka haddii uu soo raadiyo yani keywordskan keyword waxaa la dhahaa waxyaabahan SEO service camal tusaale ama SEO service waxyaabahaas qofka markuu soo raadiyo waxaa la dhahaa keyword tusaale haddii halkan aan ka raadiyo SEO service
SEO service markaa dhaho waxaa arkaa tusaale waxaa la dhahaa gig service available oo hadda number one waxaa ku jira ninkaan dhahayo George Confuse. Okay, waa fureynaa markaa furno waxyaabaha uu ku dhahayo fiiri. tusaale hadaaye ninkaan anaga basigeena $15 meesha ku ahay waxa waaye asi waa $50. standardkiisana waxa waaye $60. premiumkana $70 sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu naga experience haysto ama suuqa muddo dheer uu ku jiray. sidoo kale wuxuu haystaa review fiican dad oo shaqo u qabtay marka adig shaqo oo badan aa qabatid waxaa helaysaa reviewgan waxyaabahan about the gig qofkan yani wuxuu dhahay our team decided to send premium package on Fiverr. Normally we are charging 99% campaign, but because of we are new Fiverr, we decided to provide our best service package for only $70. marka dadkan waxay u shaqeynaa as a team company waaye halkaanay ka qaraabtaan projectya meeshaan ka helayaan projectyadaasay horumarinayaan marka halkaanay lacagtu ay ku helaan marka Fiverr waa kana qaabkan u shaqeeya haddii adi oo graphic designer aad tahay halka tusaale graphic designerska haddaa ku fano maxaa arkaysaa waxyaabaha oo graphic design la xiriira tusaale logo camal haddii aad aragtid in lagu sameeyo tusaale maanta logo haddii rabtaa in lagu sameeyo oo qofka magaalada jooga camal waxaa laga yaabaa inuu experience fiican u haysan ama yani logo wanaagsan uu ku sameyn lacag qaali oo ka qaado meesha waxaa ka heli kartaa qof oo $5 loogada kugu sameynayo iyo qof $100 kugu sameynayo tusaale haddii aad dhahdid budgetka minimum tusaale 200 camal haddii aad dhahdid 500 waxaa ka helaya qof intaan oo loogu sameynayo kana dadkan saa ujeedid $220 lagu sameynaa hal loogo kana waa saas marka halkan waxaa ka helaysaa xogta number one yani inta aadan bilaabin looga sameynta iyo maxaa la dhahaa accountka inaad samaysid waxaa u baahan tahay inaad skill iska dhistid oo aad baratid tusaale digital marketing graphic design social media marketing BBC tusaale haddii halkan aan ka raadin BBC ayadana aada loogu baahan yahay BBC camal pay per click waa kana I will set up $125 starting waxyaabahan dhan haddii aad u baahan tahay inaad baratid waxaa ka baran kartaa skillhub.com skillhub.com waxa waaye waa platform aad ka baran kartid xirfado kala duwan weliba maxaa la dhahaa afkaaga hooyo aad ku baran kartid course anaga aan bixino waxyaabaha aad ku baranaysid waa kuwana intaan oo skill kala duwan oo aad ku shaqaysan kartid meel walbo adduunka aad ka tagtid aad ka helaysaa tusaale coursekan waxaa la dhahaa advanced digital marketing course ilaa waxaa bixinaa 26 module 10 certification oo ay Google bixinayso saa ujeedid waxaa ku baran doontaa introductionka guud website sidaa u dhisi lahayd ayu website inaad baratid sidaa u dhisi lahayd sidoo kale SEO waxyaabaha la dhaho waa more opportunities ka jiro oo waxyaabahan SEO-ga iyo sida loo yaqaano waxaa la dhahaa yani search engine optimization marka haddii aad u baahan tahay inaad skillkaaga ama xirfadaada aad horumarisid coursekan waa kusoo biiri kartaa adoo booqanaya www.skillhub.com/digital marketing course marka waa mahadsantihiin kusoo dhawaada skillhub wixii comment iyo su'aalaha qabtidna qaybta hoose ee comment sectionka noogu reeb waana mahadsantihiin